dowladda Mareykanka ayaa war ka soo saartay weerarkii lagu qaaday xerada Mandabay ee ismaamulka Lamu dalka Kenya ka oo ay fuliyeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. War ka soo baxay taliska Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in askari ka tirsan ciidankooda iyo laba qandaraaslayaal wasaaradda difaaca Mareykanka lagu dilay weerarkaasi. Sidoo kale waxaa weerarka ku dhaawacmay laba askari oo kale, inkastoo magacyada askartaasi aysan soo bandhigin. weerarka lagu qaaday xerada ciidan ayaa khasaare aad u lixaad leh geystay, laakiin waxaa la sheegay in dowladda Mareykanka iyo weliba dowladda Kenya aysan si rasmi ah u soo bandhigin sida ay wax u dhaceen. Al-Shabaab ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ku shaaciyeen in weerarkaasi culus ay ku qaadeen xeradaasi ay ku gubeen dayuurado dagaal, gaadiid iyo sidoo kale in ay qaarijiyeen askar u kala dhashay Kenya iyo Mareykanka. Militariga Kenya ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen ilaa 5 ruux oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin Al-Shabaab, isla markaana ay wax ka qorsheeyeen weerarkaasi lagu qaaday xerada Kamsimba. warbixinno ay daabaceen wargeysyo ka soo baxa dalka Kenya ayaa saakay waxa ciwaan looga dhigay in weerarkii Al-Shabaab ay ka fuliyeen Lamu uu xiriir la leeyahay khilaafka u dhaxeeya Iiraan iyo Mareykanka, isla markaana aargudashadii Iiraan ay ku hanjabtay ay tani qayb ka tahay. balse afayeen u hadlay Al-Shabaab ayaa beeniyay in xasarada siyaasadeed ee ka dhex taagan Mareykanka iyo Iiraan uu weerarkooda Kenya ku lug leeyahay. Al-Shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyay waxa ay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan gudaha dalka Kenya, iyadoona weerarka xerada Mandabay uu ku soo beegmay xilli maalin ka hor sirdoonka Kenya ay shaaciyeen in Kenya gudaheeda ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan Al-Shabaab oo dalkaasi u dhashay, kuwa oo qorsheynaya in weeraro ay ka geystaan gudaha dalka Kenya. Shacabka ay ugu baaqeen in xogaha dhabta ah ee raggaasi ay u soo gudbiyaan, laakiin